بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون caawa waxaan ummadda soomaaliyeed usoo hor istaagay in aan ka tacsiyeeyo aamina maxamed cabdi geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ee caawa fiidkii. waxaan leenahay ilaahay samri iimaan allah naga wada siiyo, ayadana naxariista janno allah ka waraabiyo. xildhibaan aamina waxay ahayd qof aqoon-yahan ah oo cilmiga adduunyada iyo kii aakhiraba isku baratay. wadaadad ayay ahayday, diinta islaamka si fiican u taqaano. qof aqoon-yahana ayay ahayday oo ilaa masters degree haysata. macalimad ayay ahayday, murabbi ayay ahayd, tacliinta iyo barbaarinta muddo dheer kasoo shaqeysay. xildhibaanay soo ahayd, maantana waxay beledweyne u joogtay berri in la doorto kursigeeda. aamina waxay u taagnayd dadka soomaaliyeed ee codkoodu gaaban yahay inay codkeeda ku kabto oo ay u hadasho inta xuquuqdooda lagu tunto, inta la gardaro, inta sharciga lala hareer maro ayada oo tacadi lagu sameynayo ayay mar walba u taagneed. anay u hadli jirtay, qof dhiiran, xaqa ku dhiiran, dulmiga diidan ayay ahayd. waxaanan aaminsanahay in ay ajashi ilaahay ka sokow asbaabta ay u dhimatay ay tahay intaas waxa ay u taagneyd. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee aamina ay ka dhimatay inaan u tacsiyeeyo, oan ilaa samri iimaan allah naga wada siiyo, gadaasheedna ilaahay nama fidneeyo. sidoo kale waxaan u tacsiyeynaa waalidiintii, ehelkii iyo qaraabadii ay aamina ka baxday. waxaan leenahay ayagana samri iimaan allah ka siiyo. waxaa raboo kale inaan intaa ku daro, aamina waxa ay u taagneyd ayaan u taagnaan doonaa. aamina waxay u taagneyd dadka codkoodu gaaban yahay inay codkeeda ku kabto. aamina waxay u taagneyd dadka sharciga laga xigsaday ee loo diiday in xuquuqdooda sharciga ay ku leeyihiin loo qaado, cadaalad ay helaan ayay u taagneyd. annaguna waa u taagnaan doonaa haddii alla yiraahdo. dalkan soomaaliya waxaa horey loo soo xiray saaxadii siyaasiga ahayd, political spaces. waxaa beryahan daba la aamusinayay dadka ummadda codka u ah. caawana aaminaa ugu dambeysay, allah u naxariiste, inta ummadda codka u ahayd ee la aamusiyey. dhacdadii maanta ka dhacday garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo dhacdadii caawa ka dhacday madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada beledweyne dhacdooyin caadi ma aha. laguma tilmaami karo dhacdooyin argagixiso. sidaas daraaddeed anigu waxaan soo jeedinayaa, waan ku baaqayaa in arrimahaasi baaris caalami ah lagu sameeyo, oo baaris caalami ah oo madax bannaan loo helo oo soo baaro arrintaas. sidaas daraaddeed ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan ka codsanayaa, waan ugu baaqayaa in uu ka shaqeeyo inay baaris caalami ah hesho shilka maanta ka dhacay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada beledweyne. waxaa kale oo aan dadka soomaaliyeed ugu baaqayaa, marxaladan kala guurka ah ee dalkeenna uu maraya xilliga xasaasiga ah, inaan waddadana laga leexin. waxyaabaha qaarkood ee hadda dhacayo iyo kuwo kale oo laga yaaba inay maalmaha soo socdo dhacaan, waxaa kale u muuqan karaan in la rabo in nalaga leexiyo, nalaga weeciyo waddada, loogu dan leeyahay in carqalad la abuuro, doorashadu dibdhac ku yimaado, fowdo iyo qas kale uu dhaco. dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ka adkaystaano muxuu ahaay dulmiga iyo qaabdarooyinka jira, ayaga oo ku dhiiranaya in ay talada iyo masiirka dalka go-aanka gaaraan, annaan laga leexinin waddada go-aanka looga gaarayo. muddo aada iyo aada u kooban ayaa waxaa ka dhiman go-aankii ummaddu ay gaari lahayd. waxaa dhacaya qaarkood waxaa lagu tilmaami karaa ficilo
loogu talagalay ama loo qaabeeyey in laysaga leexiyo wadada saxda ah. yaana laga leexinin wadada saxda ah. dalka doorasho ha ka dhacdo, doorashadu ha soo gabagabowdo, sida ugu dhaqsiya badanna ha u soo gabagabowdo, dalkana ur ha loo bixiyo. meesha maanta aan joogna ma ku sii nagaan karno. waxaa qaybsan dalka xubnihii uu lahaayo dhan. baarlamaan kama jira dalka, golaha wasiiradu facaali maha, aada uma shaqeeyaan. hay-adaha amniga waa kala daadsan yihiin, sharciyadooda ayaa duran. dowlad goboleedyadii iyo federaalka, nidaamkii federaalka ahay waa kala qeybsan yahay. dalku meel xasaasi ah oo aada iyo aada xasaasi u ah ayuu maraya. yaana laga weecin wadada aan hiigsanayno oo aan ku gaarayno dalkeenu dowlad sharciyad buuxda haysata inuu yeesho sida ugu dhaqsiya badan. waxaan leeyahay kuwa beenaalayaasha ah, bilaash xiitayaasha ah, dhiigga iyo xumaha inay ku naaxayaan ama ku guuleysanaan ama sharaf iyo karaamo ay ku gaarayaan aaminsan, waxaan leeyahay ku gaari maysaan. dadka soomaaliyeedna waana ka dhug badan yihiin, waana ka dhaga nugul yihiin. waxa aad samaynaysaan dad fahmi waaye ma aha. aada iyo aad ayay u fahmayaan. waana lagu yaqaanaa dadka soomaaliyeed xiliyada ciriiriga ah go-aano masiiri ah oo adag inay gaaraan. horeyay usoo gaareen, maantana meeshaasaan taagannahay. soomaaliya waxaan leehay go-aanka masiiriga ah yaana laga leexinin. dalka aan u helno dowlad sharciyad leh oo dadka soomaaliyeed u adeegta, caalamkana la macaamisha. inta muhiimka ah oo lanoola leeyahay ina laga leexina, taasaa ugu horeyso. waxaan sidoo kale rabaa inuu kusoo gunaanado tacsi aan u diraya dhammaan dadkii ku dhintay labadii qarax ama ku dhaawacmay magaalada beledweyne. intii dhimata allah u naxariisto, inta dhaawacaana caafimaad iyo dalaalo deg dega allah siiyo ayaan leeyahay. aada iyo aad ayaa umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.